kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay ficil burkud dhiidi waxaan idin la wadaagi doonaa sheeko aad u qosol badan oo uu iga sheekeeyay nin aan saaxiibo aad u nahay wiilba xiriir waxa uu kala dhaxeeyay gabadh dhigata college xereys ah sida wada ogsoonahay toddobaadka maalmaha fasaxa ah ardayda college-ka waxa loo ogol yahay inay dibadda u baxaan oo wixii ay u baahan yihiin dibadda ka soo qabsadaan cidii markaas familigoodu ay degan tahay magaaladana waxay soo booqdaan familigooda habeenka beritoole oo kale ay tahay waxbarashona waa ay soo hoydaan kadib wiilkii galabtii ay laabanaysay gabadhu ayuu chance u helay waxa uu u kaxeeyay suuqa si uu casho geeyo isaga iyo gabadhii waxa ay ku soo daaheen suuqii waxa uu soo kaxeeyay waxa uu keenay college-kii xilli la gaadhay waqtigii albaabka weyn la xidhaayay haddii ay albaabka weynaa ee deerka ha gargaraaceen oo laga furi waayay wiilkii waxa uu gabadhii ku yiri kaale caawa marti ii noqo waa uu kaxeeyay waxa uu geeyay qol uu ka deganaa magaalada oo ay u taalay sariir hal nafar ah wiilkii waxa uu go'aan ku gaadhay in caawa gabadhaasu ay ka amaan hesho maadaama uu ka dhiganayo xaaskiisii mustaqbalka waxa uu sameeyay waxa uu yiri waxaad seexataa qaybta derbiga barkintii uu ku seexan jiray ayuu dhexdooda dhigay xaggan dhulka soo xigtana isaga ayaa seexday hadduu wiilku gamco oo hal mar uu isrogo dhulka ayuu ku soo dhacayaa habeenkii oo dhan wiilkii waxa uu ku noqotay in uu soo jeedo waagii markii uu dilaacay waxa uu soo kacay wiilkii isagoo dhinacii uu u hurday kabuubiyo ay kaga jirto gabadhii buu soo kaxeeyay waxa uu keenay college-kii habeenkaa gabadhii sidii bay uga amaan heshay college-kii haddii uu keenay college-kii albaabkiisii weynaa xalaytoole waa tii la xidhay waxa uu sameeyey gabadhii wuxuu damcay inuu derbigii inta uu ka dhaco oo albaabkii weynaa gabadhii ka soo furo wuxuu ku yiri ii qabo koodhka waxaan ka dhacayaa derbiga albaabkan ka soo furaya gabadhii intay saa u eegtay wiilkiiba waxa ku tirooriya barkimaad ka soo dhici weyday ma derbiga inta la eeg baad rabtaa inaad ka dhacdin oo ganjeel soo furtin wariga qabso koodhkaaga dii hadal kama dambeyn dulucda sheekada daawadayaashaan u deyn doonaa halka aad igala socotaana waa degilada rasmiga aan ku leeyahay baraha bulshada sida Facebook YouTube-ka iyo TikTok linkiyada page-ka YouTube-ka iyo Facebook-gana xagga hoose ayaan idin dhigi doonaa sheekadan waxa qoray nin aan saaxiibanahay oo aad farshaxanka sheekooyinka u ah Dr. Hiirad isagana halkan ayaan ka salaami doonaa wax badan waa idin horkeeni doonaa aad iyo baa mahadsantihiin